سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وعدنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وحين كجرني تاريخ دي يسير دي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وحين مريني نبي إبراهيم عليه السلام سفر ذي وقتك جري إسماعيل أو أنت سجني أيهين دور سفر هذا سفر كيس تحاد إبراهيم وحي من مكة وحنا لكل مي ويلكيس إسماعيل أو فلاركو قرنية كيد دوحة أو سمسم كأجدو مركي أو إسنا أبيه أركي أو استاجي وأنا لا يسكبودي أو سيدي لبا إسلالي أو يسوهيلوبي أو وايا كلامنا يلين markaan dambe waa markii Ibraahim iyo Ismaaciil kacbadii oo awal ahaan jirtay rako taagan oo biyuhu labada dhinac ka qaadaan ay aasaaseen oo kor u qaadeen. Dabadeedna markii ay dhameeyeen ismaheeda waa tii Alle Ibraahim faray inuu dadka xajka ugu yeero. Alle wuxuu Ismaaciil ka siiyay gabadhii Mudaad 12 wiil oo magacyadoodu kala ahaayeen Naabid, Qaydaar, Adbaa'iil, Mabshaam, Mishmaac, دومة ميشة حدود يتمع يدور نفيسة قدمان لبا يتوان كاويل وحا كفر عمي لبا يتوان قبيله وكل قدبة إلى مدد دقنامك نلوشودنا وحا أساس وحا كان أحسيقا أيوك لقادي جرين يمن شام مصر دبدنا قبائل كاسي وحا كفافين حريرها جزيرة دا دبدد حالة دودي وايها قريي ومقدبي قشي فرعي قيدار نابد معه نابينتو المهي نابيت waxay ka oogeen ilbaxnimo bullaale waqooyiga Xijaas waxayna dhiseen dawlad adag oo u hoggaansameen qabaa'ishii hareeraha degana Badraa bayna caasimad ka dhigteen. dawladdaas cidna waa ku dhici weysay inay loodiyaan ilaa ay Roomaanku yimaadeen oo baabi'iyeen. Sulaymaan an-Nadawi kadib markii uu sameeyay baarid saldheer oo sugan wuxuu soo saaray in boqorradii reer Qasaan iyo ansaartii Madiina ee Aws iyo Khasraj ahaa ay u badan tahay inaysan ahayn qaxdaaniin balse ahaayeen ubadkii Naabid bin Ismaaciil warasadii Qaydaar uu dhalay Nabi Ismaaciil. Maka ayay isaga farcameen oo ay deganaayeen ilaa laga soo gaaray Cadnaan. Carabta reer Cadnaana ilaa Cadnaan abtirsiyahooda bay ka xafdin jireen. waa awowaha koob iyo labaatanaad ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaana nabiga laga wariyay in markii uu abtirsado uu Cadnaan ku istaagi jiray oo oran jiray abtiriyaashu been bay sheegeen halkaasna uusan dhaafin jirin. qaar culimada ka mid ahina waxay qabaan inay banaan tahay in abtirsiyaha Cadnaan la dhaafiyo iyagoo xadiiskaas daciifnimo ku duraya. waxayna yiraahdaan Cadnaan iyo Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa u dhaxeeya 40 oday oo hubaal sugan ah. Macad wuxuu dhalay hal wiil oo Nisaar la yiraahdo oo isagu dhalay 4 wiil oo ay 4 qabiilo oo waaweyn ka farcameen oo kala ahaa Iyaad, Anmaar, Rabiica iyo Mudar. labada dambe bayna jilbiyadoodu tarmeen jifidoodiina badatay. Rabiica waxay u kala baxday Asad bin Rabiica, Anasa, Abdul Qays, Ilmawaa'il oo kala ah Bakar iyo Taqlib iyo Xaniifa iyo kuwa kale oo fara badan. qabaa'ilka Mudarna waxay u kala baxeen laba qaybood oo waaweyn oo kala ah Qays Caylaan bin Mudar iyo jilbiyada Ilyas bin Mudar iyo Qays Caylaan waxaa ka mid ahaa Banu Salima, Banu Hawaasim iyo Banu Qadfaan. Qadfaanna waxay u sii farcantay Abbas iyo Dubyan iyo Ashja iyo Qani iyo bin Acsar. Ilyas bin Mudarna waxaa ka farcamay Tamiim bin Mudar, Hudayl bin Mudar, Banu Asad bin Khusayma iyo jilbiyada Kinaana bin Khusayma oo ay ka soo jeedo Quraysh oo ah warasadii Fahr bin Malik bin An-Nadar bin Kinaana. Quraysh waxay u kala baxday qabiilooyin kala duwan waxaana u magac dheeraa Jumuh, Saham, Abd Maqsum, Tayyim, Shahar iyo jilbiyada Qusay bin Kilab, Abd Adar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay iyo Abd Manaf bin Qusay. Abd Manaf waxaa ka farcamay 4 jifiyood: Abd Shamsi, Nawfal, Mudallib, Hashim. waana guriga Hashim halka Alle ka doortay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. rasuulkii Alle sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri: إن الله استفى من ولد إبراهيم إسماعيل واستفى من ولد إسماعيل كنانة واستفى من بني كنانة قريش
واستفى من قريش بني هاشم واستفاني من بني هاشم. alla wuxuu ka doortay ismaaciil ilmihii ibraahim durriyadii ismaaciil kinaana yuu ka doortay ilmo kinaanana quraysh buu ka doortay qurayshna bani haashim buu ka doortay oo aniga iga doortay bani haashim. alcabaas bin cabdimudalib wuxuu yidhi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam in allaha khalaqa khalqah fajacalanii min khayrihim min khayri fariiqihim wa khayra fariiqayni thumma takhayyara qabiilah فجعلني من خير قبيلتي ثم تخير بيوته فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. alle baa uunka abuuray oo iga doortay halka u wanaagsan dabadeedna qabiilooyin buu doortay alle wuxuuna iga doortay qabiilada u khayr badan dabadeedna guryo buu doortay wuxuuna iga doortay guryaha kan u khayr badan anigaana u khayr badan iyaga naf ahaan qof ahaan iyo guri ahaanba. waxaa wariyay tirmidhi xadiiska. markii durriyadii cadnaan tarmeen waxay ku baaheen goobo kala duwan oo dhulka carbeed ka mid ah iyagoo raacaya meelaha roobka iyo daaqa leh. qabiilka cabdulqays iyo jilibyo bakar bin waa'il ka mid ah iyo jilibyada tamiim ah baa u guuray baxrayn oo degay. banu xaniifa bin sacab bin cali bin bakar waxay u guureen xijir caasimadii yamaama oo degeen. bakar bin waa'il intooda kalena waxay isku ballaariyeen oo isku dhereereen dhulka yamaama oo dhan ilaa baxrayn ilaa sayf kaadim ilaa xeebta badda iyo darfaha sawaadka ciraaq iyo ablaha iyo hayti. taqlaba badankoodu waxay degeen jasiiradda furaad. jilibyo ka mid ahina waxay la degeen bakar. banu tamiim waxay degeen baadiyaha basra. banu saliim waxay degeen madiina agteeda laga bilaabo waadi alqura ilaa khaybar ilaa bariga madiina ilaa dacalka labada buurood ilaa laga gaaro hara. thaqiif waxay degtay daa'if hawaasina hareeraha awtaas oo bariga maka ku taal waana dhulka maka iyo basra u dhaxeeya. banu asad waxay degeen bariga taymaa iyo galbeedka kuufa halka reer dayi degeen banu asad iyo tayma dhexdooda. iyaga iyo kuufana waxay isu jiraan masaafo loo kala socdo 5 habeen. dubyaan waxay degeen tayma ilaa xawraan. jilibyo ka mid ah kinaana waxay ku noolaayeen tihaama halka jilibyada quraysh ah ay degeen maka iyo hareeraheeda. quraysh waxay ku sugnayd tafaraaruq ilaa uu kasoo dhex baxay qusay bin kilaab oo isu keenay oo u yeelay nidaam mideeyay oo asaagood ka sare mariyay. marka aan damacno inaan ka hadalno xaaladii carabtu ku sugnayd islaamka ka hor waxaa lama huraan ah inaan sawir kooban ka soo qaadano taariikhdii xukunka iyo maamulka iyo caadooyinkii iyo diimihii carabtu si ay inoogu soo baxaan isbedelada ku dhacay iyo hababka ku soo kordhay soo bixidii islaamka kadib. madaxda jasiiradda carabta markii qoraxdii islaamku soo baxday waxay u qaybsanaayeen 2 qaybood. boqorro taaj leh oo aan iyagu xaqiiqo ahaan madax bannaanayn iyo ugaasyo qabiilooyin iyo beelo oo leh isla awoodda iyo sharafta boqorrada isla markaasna haysta madax bannaani buuxda. inkastoo ay jireen qaar ka mid ah oo raaciyad u ah boqor taaj leh. boqorrada taajka lehi waxay ahaayeen boqorrada yaman xiira iyo qasaan. madaxda kale ee jasiiradda taaj may lahayn. qoon kastaba waxay ka mid ahaayeen qaruumihii u horreeyay oo carabtii saafiga ahayd kuwaasoo ku noolaa yaman. qodaal cilmi baaris ah oo lagu sameeyey waxaa lagu ogaaday warbixintoodii iyadoo la sheegay inay noolaayeen 25 qarni dhalashadii ciise ka hor. marka walaalayaal maanta kitaabkeennii raxiiq al-makhtuum ee inoo socday intaas ayuu inoo joogayaa. inta aynu ku kulmi doono darsiga lamida waxaan idinkaga tegaynaa amaano allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.